afrikay hurdoy cadow ku herye hurdoy hadiyad adi hurdoy hadba cunaye hurdoy ahoy afrikay hurdoy cadow ku herye hurdoy hadiyad adi hurdoy hadba cunaye hurdoy kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Afrika iyo Afrikaanka oo ka daawataan Naba TV barnaamijka Afrika iyo Afrikaanka waxa alaaba idin soo diyaariya idin soo jeediya anigoo ah Khadar Khaliif Alsoos barnaamijka waxa toddobaadkan igala qayb qaadanaya mudane Ibrahim Maxamed Xuseen Ibrahim Dheere oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga UDF oo kamid ah axsaabta siyaasadda ee dawladda deegaanka Soomaalida barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa Afrika iyo Afrikaanka guud ahaan calaaqada ka dhaxaysa dawladda waddanka Mareykanka iyo qaaradda Afrika ama wadamada qaaradda Afrika ugu horeynse bal haddii aan barnaamijka ku soo dhaweeyo mudane Ibrahim Maxamed Xuseen mudane ku soo dhaw barnaamijka waad mahadsantihiin isha xorriyadda iyo iftiinka Naba TV mudane Ibrahim intayna hore u gelin guud ahaan calaaqada ka dhaxaysa wadamada Afrika ku yaala qaaradda Afrika iyo dawladda ama waddanka Mareykanka maxay tahay ahmiyadda qaaradda Afrika ay u leedahay waddanka Mareykanka iyo guud ahaan wadamada caalamka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in runtii waxaan marinayaa munaasabada uu ku soo beegmayo barnaamijkani waxa weeye isbedelka Mareykanka ka dhacay oo marxalad madaxweynihii Trump Republicaanka ahaa ama jumhuuriga oo meesha ka baxay oo uu yimid John Biden oo dimuqraadi ah isbedelka Mareykanka ka dhacay muxuu saameeyna oo ku yeelanaya Afrika inta aynan marka taatoos loo aadin waxa laga maarmaan in la fahmo waxyaabihii hore oo koow ka tahay horta qaaradan Afrika ahmiyad intee dhan bay leedahay adduunka nina calaaqa waqti kuma lumiyo meelan faa'iido lahayn dulmar baan ku sameeynaa qaaradda Afrika horta maxay tahay qaaradaasi waa qaaradda ugu weyn qaaradda labaad ee ugu weyn adduunka Asia kadib waxa ku nool ama dhulkeedu wuxuu dhan yahay 20% xidigan ku nool dhulka la yiraahdo 20% inta ingagan ee la dul degan yahay inta biyaha ma ahaan qaaradda Afrika ku fadhida tirada dadkeedu waxay reer waa dheer yihiin laakiin hadda inta la isla og yahay waa bilyan ama waxa la yiraahdo milyaar yani waa tiro 1 bilyan away waxba dheer laakiin waxa la filayaa 2050 oo kale inay 2 bilyan tagi doonto dadka waa qaaradda dadkeedu ugu korista badan yahay yani mesela nin Afrika dadka Afrika jooga hal waxa arki reer oo 12 madaxaas ku dhashay ama 14 ilmood dhashay adduunyada kale markay dadaasho gabadho 3 ilmood bay Allah ku dhalaysaa meelaha Yurub iyo Mareykanka iyo tirada dadka ku nool waxa la yiraahdaa 50% waxay ka yar yihiin 20 jir waa qaaradda ugu dhalinyaraysan ee qaaradaha adduunka dhinaca kale markaad fiiriso juqraafi ahaan waxay dhacdaa bartamaha badaha caalamka meelaha loo kala goosho yani ilaha adduunka ku kala gooshaan hadaad fiiriso Australia iyada xagga ka tahay America iyada xagga ka tahay Asia waa meel bartama ah oo la isku adduunku isma booska laftiisa macna sameynayaba juqraafi ahaan meesha ku taalo khayraadka Ilaahay siiyay iyana ka faa'iideysanin laakiin khayraadka alla siiyay aad u badan yihiin laakiin waxaan ka soo qaadanay petrolka 20% awoodda maanta jirta ee petrol ee ku aasan ee dhulka ee la rabo in laga faa'iideysto Afrika ku jira waxa laakiin bunka hadaan fiiriyo waa 50% yani adduunka wax bun ka soo baxo dhan iyo wax Afrika ka soo baxa ya half isu dhigma Afrikada aan ka sheekeynayno waa Afrikadaas dhaqaale ahaan sida u sareysa juqraafi ahaan sida muhiimka waa dad ahaan sida u wacan waa dabiici marka saddexdii qarni hadda u dambeysay adduunku inuu meeshan isku laayo Europeanku almost 1800 oo oodi bay soo bilaabeen Afrika say u qabsan lahaayeen ilaa maanta laga fujin laaya Mareykanka gadaal buu kaga soo biiray Ruushku gadaal meeshan marka waa kanzi ama nicmo meel fadhida sida darteed nin walba hunguri baa ka haya
waxaana ka mid ah Mareykanka. haddaan fahanay marka ahmiyadda ay leedahay qaaraddaasi waxaa noo soo bixi karta calaaqada Mareykanka iyo Afrika inaan fahano say ku bilaabatay ilaa halkaysa maraysaa. calaaqadaas Mareykanka iyo Afrika aan Afrika fiirino 54 dawlad ka jirta. juqraafi ahaanna 5 meelood baa loo qaybiyaa: bariga Afrika, galbeedka Afrika, koonfurta Afrika, waqooyiga Afrika iyo bartamaha. 54 dawlad waxay wada hoos yimaadaan waxa la yiraahdaa isu taga Afrikaanka. waxay leeyihiin in ka badan 27 hay-adood oo regional ah, maxaa la yiraahdaa, ama gobolada sida IGAD oo kale. qayb waliba intaas bay sii leedahay oo qayb dhaqaalaha ku bahoobayaan, ururo kale waxay ku bahoobayaan maxay ahayd amniga. marka waxaan ka hadlaynaa awood dawlado aad u fara badan, awood hal umbrello oo Afrika oo dhan matasha, awood hay-ado goboleed oo aad u fara badan. intaaba waxay siinaysaa ama ay xadidaysaa ama ay u dejinaysaa qaanuun sida Afrika loola tacaamuli lahaa. waxaan is dhihi karaa calaaqada Mareykanka iyo Afrikaanku ilaa 4 marxalo yaanu qaybin karnaa. marxaladii isticmaarka Yurubiyaanka ah oo qabsaday 1800 something ka soo bilaabanaysa Afrika. aad iyo aad baad mahadsan tahay mudan Ibrahim. haddaan bal su'aasheeda labaad ku weydiiyo, goormay soo bilaabatay calaaqada Mareykanka iyo qaaradda Afrika haddii aad si kooban u faahfaahiso? runtii waxaa la dhihi karaa calaaqada Mareykanka iyo Afrika oo 4 marxalo ahayd. marxaladii koowaad waxay ahayd marxaladii isticmaarka Yurubiyaanku. Yurubiyan markaan ku leeyahay waa Ingiriiska, waa Talyaaniga, waa Jarmalka, waa Portugiiska, waa Faransiiska markii Afrika qaybsanayeen. marxaladaas waxaa laga bilaabaa waa ka horeeyay wax ka horeeya jira, laakiin 1880kii ilaa 1914kii waxaa la yiraahdaa muddadii waxay ahayd ugu badnayd oo reer Yurubiyaanku ay qaybsadeen qaaradda Afrika. muddada iyada calaaqada Mareykanka ee Afrika waxaa la dhihi karaa 0 bay ahayd. iyadoo mar dhow ka xorowday Ingiriiska 1700 something bay ka xorowday. sidaa darteed dadkii wax qaybsanayay kamid ma ahayn. markii laga reebo dawlad yar oo la yiraahdo Liberia. Liberia waa dawlad ku hadasho luqada Ingiriiska ah. waa dawlad ku taala maxay koonfurta Saxaraga ee Afrika. dawladdaasi waa dawlad cajiib ah ku sameysantay. waa dadkii la adoonsan jiray ee Mareykanku adoonsan jiray oo dib loo soo celiyay. hal meeshan dawlad uga sameeyno saas lagu sameeyay. calaaqada marka Mareykanku ay Afrika la yeesheen Liberia ka bilaabataa oo 1820kii la keenay. طبعا dadka Afrikaan waa sii deganay, laakiin kooxdan Mareykanku keenay waa dawlad lagu sameeyay. ereyga Liberia laftiisa macna tusayo xorriyad iyo madax banaan waxba tusaya. calaaqada marka ay muddada Afrika la lahayn dawladda Liberia bas abay ahayd, calaaqo kale ma jirin. waxaa la yiraahdaa sababahay ula yeelan weyda calaaqada marxalada iyada Afrika maxay ahayd. waxay dhaheen waxa ugu muhiimsanaa iyadoo cusbay dawladani labo iyadoo dad madow guumeysanaysay oo aaminsaneed Afrika hadday tagto in lagu fooriyo la jeclayn ilaa waqtiga moogtay dadka madow iyagu guumeysan jireen oo qaaradooda ku guumeysan jireen. sidaa darteed waxay leeyihiin maynan uma haboonayn ama uma suuroobi karin in ay ka qayb gasho isticmaarka. laba waxay tala saaratayba dawladihii reer Yurub oo tiridinka ay wakiila. marxalada marka waxaa la dhihi karaa calaaqadooda Afrika aad bay u yarayd. marxalada labaad waxay ka bilaabanaysaa 1948 meelahaas ay ka bilaabanaysaa. aduu 57 baa boqoshadii u horeysay oo Mareykanka ay tageen Afrika oo marka waxaa talin jiray madaxweyne la dhihi jiray Eisenhower. marka ku-xigeenkiisii oo Nixon la dhihi jiray buu Afrika u diray 1957. marxalada waa marxaladii ay bilaabatay inay Afrikaanku ka xoroobaan abaabulkii. halkan waxaan ku soo guuriyay erayo uu leeyahay madaxweynihii ka dambeeyay oo 62 ninkii la dhihi jiray John Kennedy. erayo aad cajiib ah buu leeyahay. wuxuu leeyahay waxaa Mareykanka waajib ku ah in ay la bahoobaan mawjadahan kacdoonka ah ee gobonimo doonka ee Afrikaanka ee inay xoroobaan u baahan si aan mustaqbalka
africa calaaqa ula yeelano hadalkan markuu jeedinayo ninka la yiraahdo John Kennedy waa 1962 marxaladaas marka waxay ahayd marxaladii kacdoonka africa la xoroobaysay si fiican bay u garab istaageen bariga Mareykanku waxa la yiraahdaa budgetka ay ku bixiyeen waqtiga isaga ah waxay ahayd 500 milyan iyo 19 kun oo dollar oo markaa de maanta bilyan hadii loo bedelo dollarka markaa macnuhu ku fadhiyay lacag aad u badan bay ahayd oo kaga qayb qaateen habka gobernimo doonka iyo in la garab istaago waqtiga iyada yaa waxa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka 1958 waxa laga dhex sameeyay xafiiska Afrika qaabisho markii u horeysay sidaa darteed waxaan leenahay marxaladaasna waxay marxaladii Afrika ay xoroobaysay oo Mareykanku calaaqa la bilaabeen طبعا calaaqadu sadaqa ma aha adduunka marka lagu leeyahay calaaqa fiican buu la bilaabay hamudan adiga wax lagu siinayo waa lagu maal gashanaya waana laga shubaya marxalada saddexaad waxay ahayd marxaladii dagaalka soke ee la dhihi jiray dagaalka qabooba Yurubiyaanki Afrika inta badan waa ka baxeen ama waa ka wada baxeen baa la dhihi karaa Ingiriiska dib u noqday Faransiiska dib u noqday waxay noqdeen dawlado duqoobay laba dawlad oo shaab oo dhalinyaro soo baxay oo la yiraahdo Mareykan iyo Soviet labada qolaa marka quwadii isu soo hadhay ay noqotay labada quwadood waxa loo bixiyay wixii dhaxmari jiray dagaalkii qabooba oo adduunka labadood isku haysteen marka nin walba wuxuu ka dhaxali jiray dawlad dagaalkii qabooba marxaladaas calaaqadii Afrika ay la lahaayeen wadamada waan soo socdaa mudan Ibrahim marxaladii dagaalkii qabooba marka la yiraahdo dabcan xilliga dagaalkii qabooba Afrika saameyn buu ku lahaa maxay ahayd calaaqada ay Afrika marka la lahayd dawladda Mareykanku xilliga dagaalkii qabooba dagaalka qabooba horta si loo fahmo waxa weeyaan dagaalka labaad ee adduunka dhamaaday ee madfac la isla dhici jiray waxa bilaabatay sheeko kale oo diblomaasiya oo la yiraahdo wariyaha mantiqada inta aan leeyahay taabanin ama inta aan leeyahay taabanin wuxuu kale dagaal qabooba ku ahaa nuclear bal wada yeeshay markaas waxa la yiraahdaa haddaan dagaalka isku ridno baalka waa baaba'aynaa aan madax xusaas ku nidhaahno dagaalkii qabooba waxa loo bixiyay hubtoos lama isticmaali jirin waa siyaasadu marxalada iyada Mareykanku waxay qaadeen calaaqadii u xoog badneed Afrika la yeeshaan maxaa yeelay laba ideolojiya tartamaysay ama laba fikradood fikrad waxay ahayd communist ama shuuci ama wixii la dhihi jiray hawliya hanti wadaag af Soomaaliga markii loo bedelo oo Soviet-ka watay waa tii Mengistu Haile Mariam iyo Maxamed Siyaad Barre iyo Ceausescu Romania iyo ay wadamadaasi Angola iyo wadamo badan ay qaateen waa fikradda marka Ruushku watay waxa Mareykanku uu watay ama reer galbeedku guud ahaan bay wateen fikradan la yiraahdo capitalismka ama ra'sumaaliga ama maxay hanti goosadka oo iyadu ay beeska aragtida ku kala duwan yihiin marka laga wada aragtida dhaqaalaha waxay ku kala duwan yihiin shuuciyadu ilaahba ma rumaysna diinba ma rumaysna shaqo iyo waxa la rumaysan yahay dhagax iyo dabaabad kuwan xataa dollarkooda wada aragtay Mareykanka waxa ugu qoran we believe in God ilaah ma rumaysana waa hatta ideology aqeedaha bay kala duwanaayeen Mareykanku marka marxaladaas wuxuu raadinayay dawladaha Afrikaanka inayna raacin marnaba ayna ka raacin Ruushka ama wixii la dhihi jiray Soviet Unionka sidaa darteed goobo badan bay iskaga hor yimaadeen hadda Angola wadan waxay ahayd Afrikaana ciidamo Kubaana la geeyay Ruushka degay waa lagu hardamay dhinaca kale dawlado badan oo Afrikaan iyo Mareykanka isla saftay oo ka soo horjeedsaday Congo oo kale waa la isku hardamay nin boqor ah oo aad u dhib badan oo la dhihi jiray Mobutu Sese Seko ya 1960kii waxa lagu saliday nin kale oo la dhihi jiray Teshome oo ay Ruushku wateen dagaal adag baa meesha ka dhacay sida oo kale 77kii Soomaaliya waa lagu hardamay hoosta ka wada socdeen laakiin markii dambe markii mesela dagaalka 77kii Soomaaliya halkan lagu jabiyay qorshe waxa jiray Kubaanku xataa inay Muqdisho sii socdaan oo markay ugu yartahay Maxamed Siyaad Barre la rido Mareykanka soo galay oo yiri xuduudda Soomaaliya soo dhaafina tan wala isku waafaqsanaa iyada in Ethiopia la siiyo labada garaf isla qaateen marka in badan baa dagaalkaasi meel badan baa la iskaga hor yimid marka dagaalka qabooba Mareykanku wuxuu ka tanaasulay xataa wax badan oo rumaysnaa oo dimuqraadiyadda dhaqaalaha furfuran barigaas kuma mashquulin jirin dictatorka intuu u yimaado yuu dhihi jiray dictatorka doonay baa ahaw laakiin Ruushku ka soo horjeestay shuuciyadda hadda Maxamed Siyaad Barre shuuci buu ahaa Soomaa haddana Mareykanku sidii uu ku qaatay Mobutu Sese Seko waa ninkii sheegtay boqortooyo ee weligiis ah oo shaydaan ah wuxuu Mareykanku shaydaanka doonay ahaw
waxaaga iska dadkaaga la hadaan rabtay ruushkuna hayga raacin marka waxaa la dhihi karaa calaaqadii u weyneyd afrika waxaa ka dhaca la yidhahdaa marxalada dhibkii u badnaa oo dagaalkaasi uu keenay 85 inqilaab baa ka dhacay oo labada qol isku hardamayeen intuu dagaalka qabay socday 85 inqilaab oo bar Mareykanku leeyahay barna leeyahay ruushku ilaa biyaha hoosta waa la iska muquursan yahay goob lagu loolamayahay waxaa dhacay 200 oo dagaal sokeeye 22 madaxweynaha lagu dilay shirqool يعني waxa la dhihi karaa waxay burburiyeen labada qol calaaqadooda aad Afrika u burburiyeen marka marxalada waxa la dhihi karaa Mareykanku si adag buu xoog u saaray Afrika inuu calaaqa la yeesho waliba isagoo iska indha tiray dimuqraadiyadii u aaminsanaa oo dhan si ruushka uga ilaaliyo aad baad maasanta marxaladii dagaalkii qababa kadib ama marxaladaas aad ka sheekaysay burburka badan Afrika ay labada marxaladood ay Soviyetka iyo Mareykanku ay ku herdameen kadib dagaalkii qababa calaaqad noocee ah Mareykanku la yeeshay qaaradda Afrika marxalada horta si aanu fahano waa inta la ogahay taariikhda basharka aad uma dhacdo inay hal awood ay soo baxdo inta badan quraanku uu sheegay loola dafcullahi naasa bacdhum bibacd ilaahay barbu ku ilaaliyaa markii wax la guumaysanayay awoodo tartamaya jiri jiray oo Hitler iyo Mussolini oo dhinaca ahay iyo waxaa jiri jiray Ingiriiska iyo gruubka Faransiiska oo dhinaca ahay iyo markii ay meesha ka baxeen waxay yimid Ruushka iyo Mareykan oo lagu kala dhaxnoolaa 1990 buu Ruushka dariishada ka baxay Gorbachev leeyahay loo soo diray oo hilfaha u qaaday ilaa maanta waxaan ku hoos noolahay caalam hal nin ka taliyo taraamiye iyo jinniya ka soo baxa booshiya ka soo baxa dhulkan sida la doona laga yeelaa waxaa xasuusid mudan markii Ruushku meesha ka baxay Mareykanka keligii soo haray waxay ku dhawaaqeen wax la yiraahdo caalamka cusub waa eray bixin hor leh oo wixii ka dambeeyay lagu fahmi doono caalamka cusub waxay dhahaan soo adduunka hadda kama talinaha saan doonaan ka yeelo dhaqaalihiisan doonaan ka yeelo siyaasadiisan doonaan ka yeelo waxaan doonaan fardino waxaa la dhihi karaa muddada iyada Afrika calaaqada uu la lahaa Mareykanku waxay ahayd calaaqa sarreyn ah soo doona ka yeel ah waxaa la dhihi karaa afar istiraatiijiyo ama maxaa la yiraahdaa afar hab oo la raac buu samaystay oo Afrika kula tacaamulo ujeedada dhaqaale ujeedada siyaasadeed ujeedada amni iyo ujeedo lagu magacaabay waxyaabaha qaaradaha cabira ee dhibka keena ujeedada dhaqaale wuxuu yiri Afrika waa in waxay matashaa batroolka caalamka ka soo baxa ee hadda la isticmaalo waxa kaydsan ma aha waxa hadda soo baxa 12% shidaalka hadda la isticmaalo caalamka Afrika ka yimaada waa طبعا tirakoobkaas waa tirakoobkii ugu horeeyay 2004 buu hadda waxa uu maleyn aad buu u dhaafay isla sanadka 2004 Mareykanku Afrika wuxuu ka soo qaatay wuxuu u baahnaa 20% bariga dhexe oo la yiraahdo waa meesha shidaalka u badan uu ka qaato 15% buu ka qaatay Afrika ka badan Afrika 20% yuu ka qaatay baahidiisa shidaal idan ujeedada dhaqaale oo wuxuu ka yeeshay muhiim ah marxalada iyada ah bahalkan uraniumka la yiraahdo uraniumka waa maaddo jin oo dhib badan oo caalamka isku wada laayo inta badan Afrika laga helaa waxaa la yiri caalamka uraniumka yaala 7% Afrika yaala 7% Afrika yaala waa maadadan laga sameeyo waxyaabaha nuclearka iyo qalab wax badan baa laga sameeyaa daloomo qofkii lagu arko waa la dilay adduunka waa la isku laayaa halkan ay taalaa Mareykanku waxaa la yiri 84 uraniumku qaatay sanadka isaga wuxuu ka keensaday Afrika uraniumku qaatay wuxuu kala uga baahday meeshan halka bilyan oo qof degan yihiin in suuqeeda la furo oo alaab geysto oo suuqiisa geysto iyagana wax haday waxayaan wax ka soo qaato marka ka waxa la dhihi karaa waa ajandaha koobaad ee dhaqaale ee Mareykanku Afrika ka yeeshay muddadan hadda joogno maadaama cidna tartamaysa jirin marka soo doono isaga gurtaa laba wuxuu ka yeeshay ujeedo siyaasi ah oo wuxuu la yimid barnaamijkii la dhihi jiray dimuqraadiyadda Mareykanka waa kala duwan tahay dimuqraadiyadda iyo dimuqraadiyadda Mareykanka
إنه هذا الناس كفر يسمعنا لهذا الديمقراطية أن سمعنا مراديد معناه هذا وسحر وحلا دورته سحر حق عدالة اللي يلزمه كما أقوله وحقوله تايدا وباجت سلسة على كي دبض اللي قفوله هي كي هور اللي قفوله هي إيو محايا هيدا ناقتها نك أفوري إيو هو سلسة عتوي marka inaad dimuqraadiyadda Mareykanka qaadato macna heedu waxa weeye tan adigu moodaysid hadda moodaysid xukunka inay tahay ma aha waa baalka dhan wada socda waa garta Mareykanku leeyahay gabadha aroosi ninkuna ninka aroosi naagtu ninka ay furi maxay dhaxal iyo waxba la wada siman yahay maxay qofkii rabaa isagu maryaha iska dhigay qofkii rabaana uu qabi waa inaad dimuqraadiya Mareykan waa in Afrika ka dhacda buuri waa garta ولهذا بوش وكو خطبيي حول أنه ديمقراطية كلها مرمنو وحنا نور ديمقراطية وافقسن دقن كمريكانك marka hadda hadda tira dimuqraadiyan qaadanayna waan is asturana dhalkan wax xidhanayna laga yeeli maayo wuxuu kale isla siyaasadda uu qaatay inuu rido dhammaan madaxdii ka soo jeeday Soofiyeedka ee uu meesha kaga tagay hadduu fiican yahay hadduu xun yahay inuu dhaafo wadanka Maxamed Siyaad Barre saasa loo riday Ethiopia Mengistu saasa loo riday ليبيا مع عمر القذافي وحلا سعود أساسا ودعين حتى برجع دحس صدام حسين وحدوني بدلدل يعني عد كست أو لسعود منك لا ترتمي جري وجندي سياسي عابي يلا نرح عضي ما دام مرك كل جاي ما ضحوا كله فني بطوري أجدك لو كي شيء أمني ما دام الربيون ماشان حوله هذا دلدشوا ماشي وين يدكتها وحان فيري دجالكي قبل بمركو لما عضي أنتوا هذا مريكان كيمت isagoo la waxbaan dajiyay markuu ruushku dhacay laga bilaabo ilaa adoo 2005 waan malaynayaa 60 wadan oo Afrika ah iyo ka dhacday mushkilo oo deganaan la'aana isagoo haduu xugulo inta waxbaan dajinaya adoo ku haya waxa la yiri waxa qaxay 17 milyan oo Afrikaana 12 dawlad oo Afrika ah yaa ka dhacay dhaxdeeda mushkila muddadan uu hadda leeyahay waxbaan dajinayaa si aan nabad u helo wuxuu daldasho waxa kamid ah Sudan, Ethiopia, Uganda, Mozambique, Angola, Liberia, Sierra Leone, Rwanda, Burundi, Zaire, Congo, Somalia intaas dhan waxay dhacday intuu hadda kaliya adduunka ka talinayay laakiin soo wuxuu leeyahay amniga Afrika waa inaan dajiyaan wax wala soo baxo qodob kale uu qaatay oo la yiraahdo waa inaan la dagaalamo nimanka asal raaca la yiraahdo ee Afrika ay dhex fadhiistay waxaad xasuusan tahay baashi la dhihi jiray Dar es Salaam iyo maxay Nairobi qaraxii safaaradda Mareykanka ka dhacay saameyn aad badan buu ku yeeshay la tacaamulkiisa Afrika ee xagga amniga ah sidaa darteed xoog buu saaray iyadana in dad asal raac la yiraahdo Soomaaliya soo isagu dhigayo maxay ahaydey Mali meeshan la yiraahdo Maghrib al-Arabi ama dhulkan Algeria iyo Jazaa'ir iyo maxay Liibiya iyo inta isku fadhigaas ururo ka soo baxay baa jira oo dagaalami jiray kuwaasna marka ajanda ahayd oo inuu ka takhaluso marka Afrika muxuu ka yeeshay ajanda amni ah tii maxaa ka dhashay ajandihii amniga ah ciidan in la sameeyo la yiraahdo Africom oo Mareykanku leeyahay ciidankaas 2007 baa la sameeyay ilaa maantana uu joogaa 36 goobood buu Afrika xiriir ku leeyahay fadhiya rasmi degan waxaana u weyn Djibouti ciidankaasi markii hore 8 ku ku bilowday laakiin hadda nobody knows wax cid og ma jirto uu iska socdaa dawlad kasta Afrikaan wala soo dulday hayo badhiyo laga wada hadli maayo marka xataa xaaladahan amniga ee ku sheegayo isaga intuu abuuro si uu soo galo waxa la dhihi karaa marka ajandaha labaad ee Afrika kala ahana wuxuu ahaa ajandaha saddexaad waa ajanda amniga ajanda kale waxa jira uu kala yahay oo yiraahdo waxyaabaha khatarka ee qaaradaha u kala gudba Afrika maadaama maamulada ka jira ay daciif u badan yihiin wuxuu aaminsan yahay inayna aad u control kareynin مثلا درaaga oo kale Mareykanka waqti khamradu dhimale laakiin daraagu aad bay ula dagaalamaan marka meelaha laga dhoofiyo kamid tahay ama intii qaarad kale laga soo dhoofiyo la soo mariyaa Nigeria iyo meelaha la soo mariyaa cuduradan faafa oo kale sida AIDS-ka cudurro badan oo waxaa jira Afrika maadaama dawladahoodu aynan tabar lahayn adigu danaynu maayo laakiin haddana urkan laga takhalusin isaga u baabi marka waa in la dabar gooyo marka waxa la dhihi karaa waxyaabaha uu ku magacaabay waxyaabaha qaaradaha uu kala gudba iyadana ajanda ahay waxa la dhihi karaa marka marxaladaas uu hadda kaliya adduunka ka talinayay Afrika aad buu calaaqa ula yeeshay calaaqa isu dheelitirana ma aha waa calaaqa dantiisa afarta shay baan ugu muhiimsanayd calaaqa dhaqaale calaaqa siyaasi calaaqa amni
iyo calaaqo la dagaalanka waxyaabaha qaaradaha u kala gudba. aad baad mahadsantahay mudan ibraahim adduunyada 4 sano u dambeysay uu maamulayay madaxweynihii hadda doorashada laga guuleystay Mareykanka Donald Trump waxyaabo badan baa adduunyada uu ku soo kordhay oo cusub bal intii uu hadda Trump uu xukumayay waddanka Mareykanka qaaradda Afrika calaaqaadkay la lahayd Mareykanka maxaa iyada isbedel ku yimid runtii horta waxaa la dhihi karaa Trump wuxuu qayb ka yahay isbedel caalami ah oo ka dhacay waxa loo yaqaano dadka cad dadka cad dabcan marka la leeyahay Yurubta galbeed iyo Mareykanka loola jeedaa dadka cad mar waxa ka talin jirtay kaniisad kadib warkii dagaalka labaad ee adduunyada niman dhul balaarsi rabo oo siyaasad arrimo dibadeed loo adduunyada ay adoonsadaan rabo oo European oo kala duwan ba hadana qabsaday marxaladan hadda la joogo Trump wuxuu qayb ka yahay marxalo ay qabsadeen reer galbeedka niman loogu magac daray wadaniyiin ama qowmiyiin yani waa nin ku leh aniga dhulkayga baa muhiimiya maxaa arrimaha dibadda iyo buuqeeda bay geliyeen cunsuriyad ay ku jirto oo xataa dhulka laftiisa ku dhihin ninkan madow muxuu igula nool yahay ani ninkayga cad baa muqaddasa waad ogtahay marka Faransiiska hadda ninkan ka soo baxay kii ka horeeyba Jarmalka niman la yiraahdo Ingiriiska Trump marka wuxuu qayb ka yahay mashruuca nimanka qowmiyiinta cunsuriyiinta ee Yurub iyo Mareykanka ka soo baxay ee xukunka qabsadeen Trump muddadiisi waxa la dhihi karaa kaligeena ma adduunka dhan bay saameysay waa lagu rafaaday siyaasadii arrimaha dibadda ee Mareykanka ee ku dhisnayd adduunka adaa oday ka ahay kana tali maxay ahayd dadku taageersanna samayso wuxuu marmarna shaahna u yarada daadi iyo qabandi wuu bedelayba ganacsado ahaa wuxuu yiri faa'iido iyo khasaare anuuna Nigeria joogo waxa faa'iido igu jira wallahi deewa waxaynu inaga meesha qabsanayno oo misal lacag ku baxda inta oo maxay ka helaa waxba ka soo baxan buul marka calaaqada dhamay wuxuu bedelay faa'iido iyo khasaare calaaqada siyaasaduna sidaa ma aha si aad faa'iido u hesho waa inaad wax badan bixiso isoo wuxuu gulay shilin ba bixin waayaan shilin fare lagu bedelayn Mareykanku meelo badan waxa jiray musaacadaad iska siin jireen si ay u soo hoos gasho meelo kale ay ugu ilaashadaan marka aragti wuxuu keenay la yiraahdo ani Mareykan baa muhiimiya labo wuxuu keenay aragtida qofka aan cadaanka baahin la liidayo eray caana buu leeyahay oo markuu xukunka yimid uu yiri Afrikaanku markii Soomaali loo bedelay waxa weeyaan buunshe eraygaas isticmaalay buunshe yani ay nin madaxweyne caayo oo ka xun oo qof lagu dhiraa ma jiro ilaa Afrikaanku ka kaceen African Unionku oo ka qadimay maxaa la yiraahdaa ka xumaansho Senegal oo kale waxay u yeedhay safiirkii Mareykanka oo yiri ka jawaab erayga markii dambe wuxuu ororday wuxuu yiri qaaradda Afrika waa qaaradaha ugu quruxsan xataa dadka ma oran dhihinayo waa qaarad quruxsan markii nin wuxuu noqdayba isagoo cadaystay ee la dagaalanka Afrikaanka waxaan tusaale soo qaadan karnaa hal sano iyo bad safiiradii Afrika joogay inta badanna uu soo qaaday ku kala namuuna geeyay markuu yimid hal sano iyo bad يونا سفارة أنت سفارة بدن أو جوه كسو بدلي يونا سفير كلا بجينين با وحوسو ردي مع الجشي مريكانكو أفريقيا كلها عيان بوس كيسين وحب وحيا تشاينا وكيف أيديست ولقي أنتو جوه هالمرة زيارني قارد أفريقيا وزير كيس عريمة دي بدو دردير جريو ماله سومر مريجر wuxuu isku dayay Afrika mashaakilka Afrika dhexdeeda ka jira Mareykanku mar walba soo dhaxgal jiro oo xalin jiray isagu wuxuu soo dhaxgali markuu rabo inuu xaliyo ajandakiisa bas waxba Afrikaan islaantooda kama galayo dawladda Afrikaan oo yemen iyo dawlad kale mushkilad ka dhex jirta wuxuu dhigayso mushkiladina waa xalinaya laakiin calaaqa Israa'iil la yeelato waa ajanda kale oo meesha ka baxsan hayeen noo xalli baa la dhihi markuu tiisa dhamaysto uu xalin يعني نوع نقضي أفريقيا كمان حتى سود حجليه أجندة كلام مقدم مثلا يا ما هي قدام كماله وحالده كرا إدارة أمام الكترام وحو حري ودم آد وبدنا أفريقيانا وما بس وجل كران يعني ومدحوينك وبعد مريكان أنت الأوجي هاي ودم مدن توراقس كي يقولوا إلى ودن كي وما وجل كران ودم داس وبدنا يعني ودم أفريقيانا waxay nagu filan ninkii la dhihi jiray
gudihii wadanka maraykanka wuxuu ka sameeyey afrikaanka midna soogan gudihii muxuu ka sameeyey soomaalida si toos u caayay nici waa abuuray wuxuu ka dhashay ninkii la dhihi jiray George Floyd oo maxaa magaciisa George Floyd 2020 wixii dhacay natiijo waxay ahayd ka dhalatay dhaqanka Trump oo dadka madow la dhaqmay marxalada waxaan dhihi karnaa marxalad madow oo calaaqada maraykanka iyo afrika aan hore u soo marin bay ahayd mudan Ibrahim waan garanay calaaqada maraykanka iyo afrika xilligii madaxweyne Trump madaxweynaha hadda la doortay waliba la sheegay inuu isugu doorashada ku guuleystay maxaa laga filayaa iyada inuu calaaqa noocee ah uu la sameyn karaa afrika markaad eegto guud ahaan marxaladaha dhinaca dhaqaalaha amniga dhinac walba madaxweyne Biden marka uu hadda si fiican xilka ula wareego ama si toos xilka ula wareego maxaa laga filayaa in qaaradda afrika calaaqa noocee ah uu la yeesho maxaa ka iman kara intaana taa u gudbin waxaan fiirinayaa marxaladee buu imaanayaa ninka la yiraahdo Biden calaaqadii maraykanka ee soo sheegnay maxaa midho ah oo hadda yaala oo u imaanaya oo la dhihi karo muddadii adiga ka horeysay maraykan iyo afrika calaaqa ay lahaayeen waxaas oo la taaban karaan gacanta lagu hayaa waxaan ka soo bilaabaynaa markii ay dagaalka afrikaanku ugu jireen si ay u xoroobi lahaayeen idan waxaan haynaa calaaqo macnale oo marxalada dhacday oo ahayd maraykanku inuu garab istaagay xorriyadii afrikaanka gobonadonka sidoo kale waxaa hadda jira sanduuq la yiraahdo sanduuqa horumarinta afrika oo maraykanku leeyahay iyaduna waa midho jiro oo calaaqadii hore natiijkii laga hayaa muuna baabi'inin kan wuxuu fulinin maana Trump kuma baabi'inin wax jiray muuna baabi'inin wixii jiray inuu ka shaqaysiin waayay sidoo kale calaaqadii hore ee maraykanka waxaa ka dhalatay iyo afrikaanka in shuuciyadii laga wada takhaluso oo aan afrika ka hirgelin oo maxay ahayd hawliyahanta wadaagii sidoo kale midho hadda yaalla waxaa kamid ah dimuqraadiyadda say doonayba ama ha maraykaasnaato ama ha u ekaato sidii EPRDF wax beenbeen ah ahaatee nin walba hadda afrikaan inuu yiraahdo dawladda saasay dimuqraadiga ah iyadana waa midho la dhihi karo maraykanku qayb buu ka ahaa suuqa afrika inuu isaguna wax keeno afrikaankana wax ka qaato iyadana waxaan is dhihi karaa waa midho hadda yaalla la dagaalanka argagixisada soo hadba sida uu qeexaba iyadana waa midho hadda yaalla marka waxaan dhihi karaa horta calaaqadii sida ka horeysay toddobada qodob oo hirgeliyeen baa hadda yaalla marka wuxuu imaanayaa Biden iyada oo afrika iyo maraykanku inta isla taxqiijiyeen idan waa meel uu ka duuli karo marxaladii yareed Trump waxa la dhihi karaa afrikaanku Trump bay cuqdo ugu qaadeen maraykanka cuqdo uma aynan qaadin waxa loo arkay in maraykankiiba burburinaya oo cadaan iyo madow qaybinaya marka umayna fahmin inay tahay siyaasad maraykan tii uu Trump sameynayeen uma fahmin Biden markaan ka hadlayno horta Biden waa ayo Biden xisbiga dimuqraadiga ka soo jeeda waxa la yiraahdaa xayaatiisa oo dhan siyaasi buu ahaa waana dadka ugu sabir badan baa la yiraahdaa inta jeer oo madaxweyne uu istaagay ninkaasi oo ku fashilmay waadiyaabi taariikhdiisa afrika ma fiicna eray wuxuu leeyahay markuu kongareeska ku jiray oo madaxweyne waxaan ahayn barnaamij maruu soo bandhigay afrika calaaqadiisa oo ka hadlay wuxuu ku tilmaamay madowgu inay yihiin maxaa la yiraahdaa wuxuush ama xoolahan bilaa naxariista sida ruwaaga oo kale oo haddana si xoola abuur yani waxa weeyaan waraabe si waraaba ah bay af Soomaali ku noqoni marka nin laftiisu taariikh fiican inkastoo maalin ka cudur daartay oo Trump laftiisa ku shiday moogta wuxuu yiri anu baadilada afrika nacabta adoo soo ninka saa yiri ma tihid marka si public uga cudur daartay laakiin kani kama cudur daarin marka soo laftiisu nin afrika aad u jecel ma waa nin white oo iska dhala cadaana taariikhahaana leh laakiin waxaan leenahay labo okiyaalan ku fiirinaynaa okiyaalo waa cabsasho wararmay calaaqadu xumaata هل هي تشاؤم كم حال هذا في صوماليا يعني مايا كعب سشو إن لقى عب صدوا إنه وحنا النقطة منه وتفاؤل مركل الله أركتوا إنه كلا عقرنا هنا أركتوا على لو ورنين كان سوون أول بنين أفريقيا وفعنا ما حين ترامو حد كورينا وحبضن بوسنا سيقصي نينك وحير كما صعدوا أفريقيا سيادهم بكوهين دونا ضيورة ذي ترام كهاي وحجراء جرينا سيدهم بوسي ودي دونا sidii Trumpna uma hadli doono ra'iisul suuliya ra'aynu wuxuu warku sida ma aha wuxuu ka tirsan yahay xisbiga dimuqraadiga
oo guud ahaan xisbiga dimuqraadiga wuxuu kaga duwan yahay xisbigan kale ee jumhuuriga ah ummadaha kala duwan buu ururiyaa ka madow ka cad ka wixiga waxaas urursadaa marka anigu waxaan marka koobaad taageerayaa in uu noqon doono nin uga fiican Trump markaan saalahay maxaan ku dhisayaa taariikhda dimuqraadiga koow madaxdii dimuqraadiga ahayd ee hadda u dambeysay haddaan soo qaadana Clinton iyo Obama labadaasaan ka xusi karnaa labadaana wuu la soo shaqeeyey waxaa la dhihi karaa taariikhdii u fiicnayd Mareykanka iyo dhexmarta calaaqadii u fiicnayd ee Mareykanka dhexmarta Afrika labada madaxweyne intuu joogay bay dhacday sidaa darteed sanduuq dhan oo la sanduuqa horumarinta Afrika Clinton baa sameeyey Obama dawaaba ninkii intaasoo jeerna booqasho ku tagay mar wuxuu toos isagoo jooga Qaahira iyo Afrika oo dhan u khudbeeyay mar gaanu ka khudbeeyay يعني waxaa la dhihi karaa taariikhda xisbiga dimuqraadiga ee Afrika waa taariikh qurux badan taa waa qodob aan wax ku dhisaya inay calaaqad fiican doonto waxaa kale wax ku dhisaya gabadha ku xigeenkiisa ee uu doortay gabadhan la yiraahdo Harris waa gabadh Afrikaana hooyadeed waa Hindiya wax tahay laakiin waa gabadh Afrikaana way gabadhan marka doorashaduba ku galayba inuu gabadh ku madow ay ku xigeen u tahay wax buruuf ka badan oo la keeni lahaa ama cadeyn ka badan oo la keeni lahaa ma jirto in mustawa Mareykan 300 milyan doorashada lagu galo gabadha Afrikaanka madow ku xigeenaya taasina waxay taageeraysaa fikradda dhahaysa ninkani wax wanaagsan buu soo wadaa mar baan akhrinayay niman khubara oo wax ku qoray maxay jariidadan la yiraahdo Washington Post waxay iyagu leeyihiin sidii Barack Obama samayn doonaayo wuxuu marti qaadi doonaa madaxda Afrikaanka oo dhan buu isugu keeni doonaa guriga White House-ka booqashadiisa koobaad ee dibadda wuxuu ka dhigi doonaa Afrika marka way si aad u si bomboninayeen waxaan islaahay marka ninkan dhinacan waxaan ahay dadka arka inay fiicnaan doonto idaaradiisa ay Afrika u fiicnaan doonto qiimeynteeda waa gartay haddaba maxaa caqabado hor istaagi kara calaaqada Afrika iyo Mareykanka waxaan islaahay waxaa jira caqabadooyin laba qaybood ah caqabado gudaha Afrika ka jira iyo caqabado banaanka ah labadaas aan u qaybinaynaa yani calaaqadan in sidoo kale looga faa'iideysan waayo dhibaatooyin Afrika ka jira lafteeda gudaheeda yaa qayb ka noqon kara ta koobaad waxaan leenahay amni xumada Afrika waa meel aan deganayn waa taan lahayn intuu hadda Mareykanku adduunka ka talinayay 60 xaaladood oo dagaal oo kala duwan baa ka dhacay 17 milyan oo qof baa qaxay iyo ka badan 12 dawlad Afrikaan ah dib ka socda intaasi waa qodob keeni karta in Mareykanka iyo Afrikaanku wada khasaaraan sidoo kale in dawladaha kala fakfakadaan hadda intuu Mareykanku joogay Eritrea Ethiopia way ka baxday koonfurta Suudaan bay ka baxday haddana inay kuwa kala go'aan waa macquul sidoo kale Afrika waxay u jahaysatay in dawladii waxyaabihii ay haysay dadka shacabka ah lagu wareejiyo private sector maxaa la yiraahdaa waxa goonida loo leeyahay hadda mesela Ethiopian Airline tareenka waxay rabtaan dadka ku wareejiso Soomaa in badan dawladda Afrikaan hawshaas ay wadaan si nabad ma ku wareegi kartaa waa su'aal taagan weey ma u bisil yihiin mise walaalka intaad siiso ka baniga way bari burburi doonaan waxaa jirta cabsi laga qabo inuu sii bato barnaamijkan qowmiyadaha ku dhisan annagu haddaan Soomaali nahay annagu haddaan Oromo nahay annagu haddaan Amxaar nahay oo luqad iyo diin iyo ku dhisan kala googo noocaas oo kala ah cabsi badan baa Afrika iyadana laga qabaa nidaamkan Mareykanka uu ku magacaabay argagixisada oo meelo badan Afrika ka jira Soomaaliya Mali maxay Maghrib al-Arabi ama galbeedkaas Boko Haram Nigeria iyaguna arrin kale jirta weeye oo iyaduna dhibkeeda leh sidoo kale baalkan la yiraahdo draga ama maxay ahayd maandooriya oo aad ugu badan yani Afrika waxaa la yiri sanadkii u dambeeyay 1.8 billion dollar ya mukhadaraad ka soo galay draga laga dhoofiyo Afrika lagu helay lacagtaas AIDS-ka iyo cudurradan fidaya iyaduna waa arrin kale oo keeni karta in laga faa'iideysan calaaqadaas faqriga yani faqriga Afrika meeshu marahayo qolana waxay siyaadsanaysaa directii iyo maal qabeenimadii qolana waa si baabaaysa intaas oo dhan waa wax gudaha ka jira ee caqabada ku noqon kara caqabada banaanka jira
oo Maraykan iyo Afrika ba caqabad ku noqon kara حي كوان koo waa China nin China la yiraahdo Tumaalo meel meeshana bir iska wata baa jira oo siyaasadaha dawladana faragelinin waxaagana ka gadan shidaal buu ku soo saaray intay igu shubbu ku leeyahay dibna ma qabo sida reer Yurubka ku xurbin maayo tareen buu ku dhisi igu shubbu ku leeyahay waana nin qabow wixiina si daacad kugu qabani Yurubiyaanku laakiin waxa ku dhaw waxa soo saarin qabanti baan ku siinayna China intuu hadda Trump joogay shaqo waxay qabsadeen aan caadi ahayn ila ninka waalan weeyay intuu Afrika faraha ka qaaday iyo saaxiibadana yimaadeen China guriga 2000 waxa lagu martiqaaday 43 dawlad oo Afrikaan ah guriga madaxtooyada Beijing baa lagu martiqaaday wala loo wada yeeray intii timid baa la sheegayaa dawladda barkood wasiirada ka socday wuxuu ka dhaafay Afrika koo soddon dawlad oo Afrikaan ah iyo deynta ka dhaafay deynta waxay u dhigantaa 1.3 billion euro ka saamaxay China oo loo wada ku sheegaya dhaqaalaha isdhaafsiga ama wax isdhaafsiga sanadkii hadda 2019 China iyo Afrika lacagta isdhaafsadeen waxay gaadhay 208 billion dollar Maraykanka ma taqaanaa 160 billion feeri meesha marka sida loo kala haray challenge-ga labaad waa Faransiiska 20 dawlo oo Afrika yaa waxay ku jirtaa golob la yiraahdo Francophone ama aduu ku abtirsata badna luqada Ruushka toos uga luqada Faransiiska toos uga hadlaan badna kuma hadlaan laakiin golahay ku jiraan 20 dawlo iyo Faransiisku shirsadaa ciidan dhan buu leeyahay oo ka Maraykanka u dhigmo isagoo Afrika ka hawlgala oo sida Africomton oo kala ah oo meeshu rabo isna madax ku dhufta ninkaasi aad buu firfircoon yahay isna challenge buu ku noqon karaa marka waxaan leeyahay calaaqada gudaha iyo calaaqadaas maxaan jeedaa challenge-ga gudaha ama maxaa la yiraahdaa caqabadaha gudaha iyo caqabadaha labada banaanka ka ah iyo calaaqadooda laga yaabaa inay qarniga soo socdo hor istaagto aad iyo aad baan mahadsantahay mudan Ibrahim waxaynu maraynaa gabagabadii barnaamijka Afrika iyo Afrikaanka ee toddobaadkan waxaa tahay siyaasi isla markaana bartay culunta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaa tahay qof Afrikaan maxaad Afrikaanka kula talin lahayd inay xoog ku saaraan marxaladan xilligan lagu jiro Maraykanka macnaha Maraykanka maxaad kula talin lahayd Afrikaanku inay xoog ku saaraan in Maraykanku uu la qabto ama ay xoog badan galiyaan ama ay waqti badan galiyaan maxaad kula talin lahayd horta Afrikaanku inkastoo hal gol ay leeyihiin oo EU la yiraahdo oo runtii iska muhiim ah marka la fiiriyo hadda inta uu jiray waxyaabaha uu qabtay haddana hadiya jeer gacanta hoose tabar badan ma leh ninka gacanta sare leh haddana wali ninka gacanta sare haddana la tartamaynin waa si adag yahay laakiin anu waxaan dhihi lahaa qarnigan soo socda Afrikaanka qodobo doora u yaala inay Maraykanka xoog ku saaraan marka koobaad in xubin joogta ay ka helaan golaha amniga qaarada dhan ay arkayso waxa soo khayraad yaalo ee uu daldalanayo in hal qof golaha amniga loo geliyo yani dawladaha hadda golaha amniga ku jira magaca nuclear si aad u fahanto awooda nidaamkan ra'sumaaliga ama hanti goosadka ah mentality ahaan habka u fakarayaan si aad u barato waxa lagu siin maayo tiradaada iyo insaaniyadaada iyo baahidaada iyo sharaftaada waxa lagu siin imsoo ina dhibi karaa ma la socotaa China Soomaaliya oo xarabeena xorahayn aan qaramada midoobe ku jirin dawladii u codeeyay Soomaaliya kamid ah waxa weeyay dawladii koowaad bay ahayd haddana maxaa lagu daray golaha amniga maxaa yeelay nuclear bay samaysatay Faransiiska waxaan u malaynayaa hadii Ethiopia 10 meelood oo qaybiyo meel kamid uu la egyahay golaha amnigu ku jira maxaa yeelay waxba uu haystaa Ingiriiska hadda waxba ka soo haray jasiiradaha yar oo jasiiradaha Ingiriiska hub ma haysata nuclear ah waad mudan tahay wax lagu siiyo ma haysatid Soomaa qaaradan baa hub iska dhaqaaq iska socday Maraykan marka ama dimuqraadiyad ha ku keeno ama inuu ku keeni waxba kuma ogola hadaadan adigu laga absanin sida ay tahay hadda hubka soo kordhay waxa kamid ah hubka dhaqaalaha Afrikana waa kan 20% shidaalkiisa baahida shidaal ee Maraykan u baahan yahay Afrika ka qaataa Afrikaanka waxa loo baahan yahay dhaan horta waa inaan helaa xubin golaha amniga oo joogta laakiin hadii maalin walba lagu yiraahdo Ruushka veto ku saaray iyo Maraykan ba veto ku saaray masaalixdeena dhan baa lumaysa codsiga kale ama arrinta kale aan arkay Afrikaanku xoog saaraan waxa weeye in suuqa reer galbeedka loo furo waxyaabaha ay soo saaraan Afrikaanku suuqa Afrikaankana
laga yareeyo waxay soo saaraan Mareykanku waay ninka dhaqaalihiisu waa dhisan yahay gaadhigiisu kayga waa ka qurux badan yahay hadduu gaadhigiisa uu keeno ani keegan sakaraadka soo kacaya ciidamada gadanaysaba idan waa inaan helo in la ii daneeyo maadaama uu wax badan oo kheyraad ay qaadanayaan inuu halkan igu daneeyo macnaheedu waxa weeye alaabteeda sakaraadka ana qaado taada fiicanna boqolkiiba boqol keenyo kontonkeen si aan soo kobco xaq bay u leeyihiin la xoolahoodii iska daldalanayaan taana waxa isla waqtiyada dhaqaale loo baahan Afrikaanku xoog saaraan waxa kale oo isla Afrikaanku inay xoog saaraan shidaalkooda hadda boqolkiiba 20 buu qaataa in ay dhahaan suuqa aan shidaalka geynayna u weyn noqo leeyahay kullu suuqa moogtahay shidaalka hadaad wixii soo saartay cid ka qaataad u baahan tahay marka Mareykanku waa dhul aad u weyn waa warshado badan buu leeyahay inta ka badan marka in laga qaato Afrikaanku waa mudan yihiin xagga militariga runtii reer galbeedku tababarada ay siiyaan Afrikaanka waxay diyaariyaan ciidanka madaxweynaha ilaaliya iyo gruubka sanadkii marka waxa la dabaaldega mara iyo wax tayala uma dhisaan ciidan tayala bay Afrika u baahan tahay oo wax lagu aamini karo tababaran hadda waxaan arkahay iyadoo laga hadlayo ciidamada oo reer galbeedku u tababara Afrikaanka iyo ciidamada ay reer bariga u tababaraan hadda Soomaaliya berigi ma garanayay 77kii markii ay Ethiopia la dagaalamaysay ciidanka waxa la weydiiyay Maxamed Ali Samatar ciidankii inuu soo haabaa leeyahay 40 kun buu ciidanka dhan Soomaaliya wadanka aragtay Ethiopia Mareykan baa gacanta ku hejira ciidankiisa show inta xayla salaasad dabaaldega u sameeyay buu dhisi jiray kana ruush baa intuu yimid musadaba ugu dhisay ciidan dawaakii ay meesha ogeyd ay gaareen marka Afrika waxay u baahan tahay uma baahna object waxay u baahan tahay musaacada military oo rasmi ah ta u dambaysa waxa weeyaan oo Afrikaanka aan u maleynayo in ay iyagu dictatorradooda ayna u baahnayn laakiin shucuubta u baahan tahay in waxa la yiraahdo dawlad wanaag Afrika inuu Mareykanku ku saacido aad buu yiraahdaa u dhaxdhaha inuu ka rumeeyo Biden oo uu yiraahdo waxaan musaacada dheeraad ah siinaynaa qofkii maamul wanaagsan oo si xor lagu doorto kii dictatorana umada laga qabto aad waa mahadsan waa tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay mudane Ibrahim Maxamed Xuseen Ibrahim Dheere daawadayaal inta waxayna uga barnaamijkii Afrika iyo Afrikaanka oo toddobaadkan ka daawanayseen Nabad TV toddobaadkan waxaan ku soo qaadanay barnaamijka Afrika iyo Afrikaanka guud ahaan calaaqada Afrika iyo caalamka kale iyo guud ahaan calaaqada u dhaxaysa Afrika iyo Mareykanka barnaamijka toddobaadkan waxay kala qayb qaatay oo mar labaad u mahadcelinayaa mudane Ibrahim Maxamed Xuseen Ibrahim Dheere oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga UDF waxay idin soo jeedinayaan aniga oo Khadar Khalifa Alsoos kaamirada waxay ga caawiyay saaxiibkay Bile iyo Nimcaan waa farsamadii Nuuruddin Fuad intaanu barnaamijkan mid lamid dib ugu kulmi doono guud ahaan waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Afrika hurdoy adow ku heriye hurdoy hadiyad aadi hurdoy hadbaun ay hurdoy ahoy Afrika hurdoy adow ku heriye hurdoy hadiyad aadi hurdoy hadbaun ay hurdoy